ururka dhaqaatiirta aan xuduudda lahayn ayaa waxa ay sheegeen in xalay badda Mediterranean-ka ay kasoo badbaadiyeen tiro muhaajiriin ah kuwa oo kasoo talaabay xeebta dheer ee Afrika iyo Yurub ay wadaagaan. Tirada muhaajiriinta la soo badbaadiyay ayaa waxa lagu sheegay inay gaarayeen 190 qof, waxaana ay ku safrayeen dooni yar oo ka samaysan loox. Markabka badbaadada ee ururka dhaqaatiirta aan xuduudda lahayn ayaa waxa uu ku guuleystay in dadkaasi uu kasoo badbaadiyo badda xilli ay xaalad xun ay ku sugnaayeen. Ururka waxa ay sheegeen in dadka la soo badbaadiyay ay ku jireen caruur aan cidna la socon. Dhanka kale, ciidamada ilaalada xeebaha wadanka Talyaaniga oo wata maraakiibta badbaadada ayaa waxa ay ku guuleysteen badbaadinta 2 dooniyood oo nooca kalluumeysiga ah oo ay saarnaayeen dad ku dhow 800 oo qof oo muhaajiriin Afrikaan ah. Ciidanka ilaalada Talyaaniga ayaa waxa ay xeebaha Sicilia kasoo badbaadiyeen doon ay saarnaayeen 450 muhaajiriin ah, halka xeebaha gobolka Calabria ay kasoo badbaadiyeen tiro 295 qofood ah. Dadka la soo badbaadiyay ayaa waxaa la sheegay inay kasoo talaabeen xeebaha Liibiya iyo Tunisia ee waqooyiga Afrika, waxaana ku jiray tiro dumar iyo caruur ah. Dhanka kale, ururka caalamiga ee socdaalka adduunka ee marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaano IOM ayaa waxa ay sheegtay in sanadkan oo kaliya xeebaha Mediterranean-ka ay ku dhinteen ama lagu laayahay dad lagu qiyaasay 400 oo qof. Si kastaba ha ahaatee, dowladda Talyaaniga waxa ay sheegtay in kaliya 3 bilood ee la soo dhaafay ee bilowgii sanadkan ay dalkoodu soo gaareen 20,000 oo dooniyood oo ay saaran yihiin kumanaan qof oo muhaajiriin ah.